marka waxaa ku guulaystay wareegga koowaad musharax Axmed Maxamed Islaam waa mahadsantihiin. Axmed Madoobe oo loo doortay madaxweynaha 5 sano ee soo aadan hogaamin doona maamulka Jubbaland dowladda dhexe oo si toos ah ugu bareertay inay la gasho dagaal Axmed Madoobe laba diyaaradood oo ciidan lagu geeyay meel aan sidaas uga fogeen magaalada Kismaayo hubanti la'aanta ay gashay Kismaayo wararkii ugu dambeeyay qorshaha dowladda iyo mucaaradka ololaha ay ka dhex bilaabayaan magaaladaasi ayaan muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa. aynu ku horeyno magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubbaland waxaa maanta ka dhacday doorasho oo mar kale ku soo laabtay madaxweynihii maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe doorashada oo ahayd mid la sii ogaa natiijada ka soo baxaysa ayaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu ku soo baxay natiijo codeed oo la sii ogaa markii hore saddexda musharax ee tartantay oo kala ahaa Abubakar Cabdi Xasan oo 4 cod helay iyo Faysal Maxamed Bootaan oo helay 16 cod iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland ee la doortay 5 sano soo aadanna ay baarlamaanka Jubbaland sheegeen inay hogaamin doonaan maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam ayaa helay 55 cod 52 cod musharaxa helay ayaa wareeg koowaad ku guuleysanayay waxaana 55 cod wareeg hore ku soo baxay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo durba baarlamaanka maamulka Jubbaland gudoomiyahooda ama gudoonku ay dhaariyeen loona dhaariyay inuu hogaamiyo maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dagaal adag kula jiray muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda dhexe waxaana 3 musharax oo la tartantay mid kamidna uu tanaasulay labadii soo hartay uu uga badiyay codad aad u badan oo natiijadeeda markii hore la sii ogaa dowladda Soomaaliya ayaana qaadaysa tallaabo degdeg ah isaga oo Axmed Madoobe fariintii shalay uu diray iyo wixii ka sii horeeyay ay ahayd mid ay dowladda dhexe ugu dirayay in qorshaha doorashada Jubbaland go'aankeedu iyagu ay leedahay marka laga soo tago doorashada ka dhacday magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubbaland Axmed Madoobe uu ku soo baxay dhinaca kale dowladda dhexe ayaa la filayaa maanta inay qaado go'aan ay kaga soo horjeedo natiijada ka soo baxday doorashadii ka dhacday Kismaayo iyaga oo xogaha hordhacay hadda la helayo ay sheegayaan inay qaadici doonto oo ay si bareer u diidi doonto dowladdu doorashadii Axmed Madoobe maanta uu ku soo baxay dhinaca kale Kismaayo waxay galaysaa hubanti la'aan xoogan oo ku aadan natiijada doorashadii ka soo baxday iyo sidoo kale ciidamo durba la sheegay in Kismaayo ay ku wajahan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay qaaday tallaabo culus waxaana dowladdu ay ciidan ka dejisay magaalo xeebeedka Raskamboni oo Kismaayo aan sidaas uga fogeen qaybna ka ah magaalooyinka gobolka Jubbada Hoose waxa ciidankan oo 2 diyaaradood ay ku geysay magaaladaasi ama magaalo xeebeedkaasi la filayaa in isla maanta doonyo dheereeya ay ka qaadaan magaalo xeebeedkaasi dhanka badana ay ka gali doonaan magaalada Kismaayo iyaga oo xeebta mari doona ayaa waxaa qorshuhu yahay in saacadaha soo aadan ciidamadaasi ay gaaraan meel aan sidaas ugu fogeen magaalada Kismaayo oo dowladda dhexe ayaa u bareeraysa sida xogaha la helay ay sheegayaan in ay dagaal la gasho madaxweynaha maamulka Jubbaland ee baarlamaanka maamulkaasi maanta ay doorteen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ilaa 5 diyaaradood ayaa la qorsheynayay maanta in magaalo xeebeedkaasi ay ka degaan 2 kamid ah ayaa gaaray oo ciidamo geeyay halkaas sida in kaga muuqata diyaaradan iyo ciidanka ay sidoo magaalo xeebeedkaasi ka degtay waxaana socda dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay iyada oo xukuumadda Soomaaliya iyo dowladduba ay qaadeen tallaabo culus oo ku aadan Axmed Madoobe sidii Kismaayo ay uga farmaroojin lahaayeen guud ahaan Jubbaland ay uga saar lahaayeen sidoo kale waxaa socda dhaqdhaqaaqyo culus oo ka socda gobolka Gedo iyo qaybo kale sida horey dowladdu ay u sheegtana waxa ay ku adkeysanaysaa in ay qaadacdo oo si weyn uga hortimaado doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubbaland dhinaca kale Kismaayo waxa ku sugan musharaxiintii mucaaradka ahaa oo iyana ciidan ku haysta madaxweynaha dooran ee dhanka mucaaradka Ilyas Bedel Gaboose ayaa ku dhawaad 300 oo ciidan in ku dhow ku haysta gudaha magaalada Kismaayo waxaana la filayaa in ciidamadan gaaray magaalada Raskamboni ay garab u noqon doonaan isla ciidamada ku sugan gudaha magaalada Kismaayo oo mucaaradku ay haystaan dowladda Soomaaliya ayaana qaadaysa tallaabadii ugu cusleed ee ka dhan ah Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe magaalada Kismaayo waxa ay wajahaysaa hadda culays xoogan oo ku aadan
doorashooyinka maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay iyo sidoo kale qorshaha dowladda Soomaaliya iyo tallaabada ay qaaday. Dowladda dhexe waxa ay qaaday tallaabo culus oo ku aadan in marnaba aysan ogolaaneynin doorashada Kismaayo ka dhacday marka la eego ciidamadii ka degay magaaladaasi qaybo kamid ah ama meelo aan sidaas uga fogeen. Diyaaradaha ka degay magaalada Raaskambooni oo magaalo xeebeed ah waxaa la filayaa ciidanka ay sideen oo ka tirsan dowladda dhexe in ay doomo ku tagaan magaalada Kismaayo, halkaasina ay ka bilaabi doonaan howlgalka dowladda ay u xil saartay. sidoo kale waxaa suurtagal ah in ciidamo jooga gudaha magaaladaas iyo dhankooda ay bilaabaan dhaqdhaqaaq xoogan, waxaana dowladda dhexe saacadaha soo aadan ay qaadi doontaa war ku aadan ama tallaabo ku aadan doorashada ka dhacday maanta magaaladaasi. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa markii hore cabsi xoogan ka qabay in doorashada maanta ay ka dhacdo gudaheeda khiyaano ku aadan in doorashada dhan kale loo wareejiyo, balse waxa uu ka gudbay jagboontigii ugu adkaa ee baqdinta iyo cabsida ilaa iyo xalay ka muujinayeen garabkiisa oo xildhibaanada saakay waxa ay mareen marxaladii ugu cusleed oo baaritaano ah inta aan la gaarin hoolka doorashada oo madaxweynaha Jubbaland ee la doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ku sugnaa doorashada Kismaayo oo bulshadu indhaha ay ku hayeen, sidoo kalena la sii ogaa natiijadeeda dhinacay u socoto ayaa mid kamid ah musharaxiintii afarta ahaa ee tartamayay oo tanaasulay. waxa uu fariin culus u diray dowladda dhexe isaga oo sheegay in dowladdu ay u socoto duminta maamulka Jubbaland. fariintan ayay dad badan ogsoon yihiin in uu gadaal ka riixayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isaga oo ka dhaxadlay mid kamid ah musharaxiinta ayaana waxa ay dhankoodu ahaayeen kuwo garab ahaan si weyn taageero u siinaya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe marka la eego musharaxiinta kale ee mucaaradka ee nidaamka Axmed Madoobe diiday kana soo horjeestay doorashooyinkan ku qabsaday gudaha magaalada Kismaayo. Cabdi Cali Raage waa musharax mucaarad ahaa kana tirsanaa musharaxiinta maamulka Jubbaland sida weyn u diidanaa Axmed Madoobe. waxaa dhankiisa xogaha la helaya ay sheegayaan in uu haysto ciidamo gaaraya tiro 100 askari ku dhow oo isaga taabacsan ama ilaalo u ah. sidoo kale madaxweynaha dooran ee garabka mucaaradka senator Ilyas Bedel Gaboose waxa uu haystaa in ka badan 200 askari. xaaladda Kismaayo ayaana ah mid hubanti la'aan ku sugan xilligan oo garabka Axmed Madoobe oo diyaar u ah in ay cid kasta ka hortagaan iyo mucaaradka oo helaya garab culus oo dhanka dowladda ah ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee hadda isku haya magaalada Kismaayo. waxaa si walba ay wajahaysaa xaalad aad u cakiran, waxaana diyaaradahan ka degay magaalo xeebeedka Raaskambooni ay yihiin kuwo dabka ku seeshadaya cabsida xoogan ay qabaan shacabka reer Jubbaland. Kismaayo waxaa hadda walaac xoogan maalmihii la soo dhaafay laga dareemayay musharaxiinta mucaaradka ee hubka ku dhaxaysta, iyadoo oo wasaaradda amniga gudaha ee maamulka Jubbaland ay ku adkaysteen in aysan marnaba raali ka noqon doonin in musharaxiintu ay haystaan ciidamo. iska badaa hadda oo dib loo doortay Axmed Madoobe, waxaa tallaabada ugu horeysay Axmed Madoobe uu qaaday ay tahay la dagaalanka musharaxiinta sida ay sii og yihiin qaar badan oo ka tirsan siyaasiyiinta reer Jubbaland horena u soo arkay Axmed Madoobe iyo tallaabooyinkii uu qaaday. madaxweynaha maamulka Jubbaland ee hadda ay doorteen maanta baarlamaanka maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe 5 sano oo hordhac ah ama hor leh ayuu helay, waxaana uu mar kale bilaabi doonaa ololihiisii maamulka Jubbaland iyo shaqooyinkiisii isaga oo dib u soo laabtay Axmed Maxamed Islaam. dowladda federaalka Soomaaliya ugu dambeyn waxa ay qaaday tallaabo culus iyada oo dadka ka agdhow dowladdu ay sheegayaan inay u bareertay dagaalka Axmed Madoobe ka dhanka ah iyada oo ciidamo la geeyay magaalada Kismaayo goob aan sidaas uga fogeen, waana magaalo xeebeedka Raaskambooni oo Jubbada Hoose ka tirsan. gobolka Jubbada Hoose waxaa ka socda dhaqdhaqaaq xoog leh, waxaana qaybo badan magaalooyinka gobolka Jubbada Hoose dhaca ay ka bilaabatay dhaqaaqa ciidanka ay sameynayaan, waxaana ay u muuqataa markan saacadihii ugu dambeeyna xoguhu ay sheegayeen in dowladda dhexe ay qaadi doonto saacadaha soo aadan tallaabooyin kale oo jawaab ay uga bixinayaan doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo. Kismaayo ayaa la ciirciiraysa cabsi iyo sidoo kale qalalaasho siyaasadeed, waxaana hubanti la'aanta maanta ay gashay Kismaayo iyo ciidamada ka degay magaalada Raaskambooni
magaalo xeebeedkan ciidanka maanta dowladdu ay geysay ay yihiin kuwa isku soo aaday xilli Axmed Madoobe doorashadii maanta uu qabsaday.